dhammaystirmaa. weliba maalinta ay gabadha isku aragtay caadada ayaa waxaa la arkay durbo waxaa sida meel teendho oo kale lagu soo xira ama lagu xabisaa gabadha caadada heshay. waxa ayna rumaysan yihiin in dhiiggaasi wasaq iyo shar aad u badan in uu wato. gabadhaasina waxaa mamnuuc ka ah in ay taabato cunto oo dhan. teendhada yarta ah ee loo sameeyey ayaa sida meel daaqad oo kale ayaa looga furaa, kadibna qaando oo kale ul ay geeda ay ka sameeyeen ayaa gabadhaasi lagu qasbaa in ay cunto ku cunto. waayo gabadha dhiigga heshay in ay dad arkaan ama in ay bannaanka u soo baxdo waa mid mamnuuc ka ah. cunto la kariyeyna in ay taabataba waa mid sidoo kale ayaga xaggoodii aad u weyn. sidaasi darteeda si aysan cuntada baraka aysan uga tegin darteedii waxaa qasab ah in ay ul ku qaadato. sidaasi darteeda waxaa arrintani ka qayb qaadanayo dumarka xaafadda ku nool iyo gabadha hooyadeedii. ninkii gabadhaasi loo guurin lahaa ayaa isagana si degdeg ah ku soo diyaargarooba maadaama gabadhii uu guursan lahaa dhiig ay heshay. intaa kadib gabadhu waxaa u bilaabanayo marxaladii is-asturaadda. caleemo ayay ku xirtaan xubnaha jinsiga. maadaama caruurnimadii ay dhammaatay gabadhu mamnuuc ayay ka tahay intaa kadib ragga hortoodii in jirkeedii qayb ka mid ah ama qaybaha mamnuuca ah in la arko ee caleemaha ay ku xirtay inay iska furto. nidaamka guurkoodiina inta badan waxuu u badan yahay reer Yanomami iyaga dhexdoodii guurka qaraabada. bulshada Yanomami waxa ay rabaan in ay aad u xoojiyaan xiriirka qoyskoodii, waxa ayna sida xooga ay ku saaraan guurka ilmo adeerada. balse nidaamkani guurka qaraabada iyaga dhexdoodii qaarkood waxa ay arkeen in xanuuno laga dhaxlo mamnuuc ayuuna ka yahay. balse qaarkood ayaa weli nidaamkani guurka ilmo adeerada weli ku taagan. sidoo kale bulshadani reer Yanomami inta badan guurkoodii waa halhal. aad ayay u yar tahay raggoodii in ay dumar dhowr ah ay guursadaan. balse qaar ka mid a hogaamiyeyaasha ama ragga hodanka ah ayaa laga yaabaa in ay qabaan in ka badan hal xaas. sidoo kale waxaa lagu arkaa iyaga dhexdoodii furayn marxaladaha qaarkood sida gabadha haddii ay wax dhali kari weyso. sanadihii u dambeeyey qabiilkan Yanomami ee adduunka oo dhan ka go'doonsan waxa ay aad ula falgaleen dunida kale ee casriga ah. tanina waxa ay u keentay in isbeddelo badan uu ku imaado qaab labiskoodii. waxaa la arkay in ay bilaabeen in ay xirtaan dhanka reer galbeedka. waxa ay helayaan daryeel caafimaad oo casri ah. si kastaba ha ahaatee qabiilka Yanomami waxa ay weli isku dayayaan in ay ilaalsadaan qaab nololeedkoodii soo jireenka ah iyo in aysan la falgelin dadka bannaanka ka imaanayo. inta badan waxa ay dareen shaki ah ay ka muujiyaan dadka shisheeyaha ah ee bannaanka ka imaada. balse qaar iyaga ka mid ah ayaa xiriir la sameeya dadka shisheeyaha ah ee bannaanka ka imaada, sida dalxiisayaasha ama saynisyahanada soo booqda ee raba in raad cilmiyeed ay ka ogaadaan. luuqadda dadkani reer Yanomami ay ku hadlaan oo aad u adag darteedii way adag tahay in la barto. balse taariikhyahanada iyo aqoon-yahanada ayaa isku daya si ay dadkani wax un ay uga ogaadaan macluumaad cilmi ahna ay uga soo aruursadaan. barashada luuqadani iyaga oo keliya ayaa isku dhiba. si kastaba ha ahaatee xubnaha qabiilka Yanomami dunida kale ee maanta aynu ku noolnahay inta ay ka arkeen mooye wax kale oo faahfaahsan nolosha caadiga kama ay yaqaaniin. waxa ayna doorbideen noloshoodii gaarka ah inay isaga noolaadaan si uusan dhaqankoodii uusan u burburin. nolosha caadiga ah ee bani'aadamkuna aad ayay uga fogaadaan. maanta qabiilkan Yanomami waxa ay weli ay isaga nool yihiin kaymahoodii. xaalufinta dhirta, qodista macdanta sharci darrada ah ee dadka qaar ay sameeyaan iyo khataraha kale ee deegaanka ayaa saameyn ku yeelanayo nolosha iyo jiritaanka qabiilkani. waxaa la isku dayay in badan in qabiilkani laga soo saaro kaymaha nolosha caadiga ahna in lagu soo daro, balse aad ayay u adkaatay. waxaa la arkay habnololeedkoodii biolojiga in uu ka duwan yahay habnololeedka kale ee bani'aadamka kale caadiga ah, maadaama iyaga qarniyo ay isaga dhex noolaayeen kaymahani dhexdoodii. hergabyar ayay u dhiman karaan. bani'aadamka caadiga ah ee innaga fayrusyada iyo xanuunada jirkeeni uu awood u leeyahay inuu iska difaaco iyaga xaggoodii. fayrusyadani maadaama jirkoodii uusan la qabsanayn aad ayay ugu adag tahay.
sidaasi darteeda qabaa'ilka noocani oo kale ah ee daafaha adduunka ku nool baaritaanadii horey loogu sameeyey ayaa lagu arkay haddii deegaankoodii laga soo saaro in si degdeg ah ama maalmo gudahoodii in ay dhimanayaan laga soo bilaabo bartamihii 1960meeyadii dowladaha Brazil iyo Venezuela waxa ay bilaabeen barnaamijyo dhowr ah oo loogu talagalay in qabaa'ilkan Yanomami in booskoodii lagu ilaaliyo balse sanadihii la soo dhaafay qabiilkani waxa ay la kulmeen caqabado badan qabiilkani waxa uu wajahayaa hadda qataro ay ka mid yihiin in dhirta oo dhan in la xaalufiyo meel ay ka ugaarsadaan in ay sida ay ku waayaan iyo macdantana tirada badan ee bani'aadamka meel walba uu ka raadinayo noloshoodii aad ay halis ugu tahay si virus in halka ugu tago ugaarsiga sharci darrada ah ee dadka qaar ay sameeyaanna waxa uu sabab u noqdaa marmarka qaar in ugaarsatada iyo dadkan inay iska hor imaadaan sidaana dadkani reer Yanomami wax waliba oo ay wax ku ugaarsan jireen in dadka ugaarsatada ah in ay ku dilaan ama in iyagaba la ugaarsado beesha caalamka qaramada midoobay waxa ay wadaa dadaalo lagu ilaalinayo qabiilkan Yanomami si aysan u dabargo'in dadka u dooda difaaca xuquuqul insaanka waxa ay ku doodayaan in dadaal dheeri ah in loo baahan yahay in lagu bixiyo ilaalinta qabiilkani caqabadaha ay wajihi karaanna in qabiilkani si degdeg ah in looga hortago wax badan ayaa looga baahan yahay ayay qabaan Brazil iyo Venezuela